asalaamu calaykum waan ku salaamay daawada meel walba aad joogtid ku soo dhawow sheekada cabsida iyo argagaxa leh ee Sasha Samsudin qaybteeda labaad. qaybtii hore ayaa noo joogtay Julia iyo Joff oo la soo xiriiray booliska kuwaasoo goobta cawayska iyo tamashlaynta ku caweynayay ayaa sheegay inay arkeen Sasha oo zaid u caraysan, laakiin waxaa jiray koox rag ah oo rabay inay baabuurka la raacaan. Amaankeeda ayaan u warwarnay si degdeg ayaan u soo baxnay, waxaan aragnay Sasha inaysan telefoon iyo shandad midna aysan haysan, isla markaana aanay jirin xaalad ay ku tagto gurigeeda. qaybta xigtana waxay ku bilaabanaysaa sidan. Julia iyo Joff ayaa u sheegay booliska inay raaceen Sasha, balse waxaa jiray laba nin oo aanan si wanaagsan u jeclaysan oo si qasab iskugu dayay inay raacaan. ficiladooda oo aad u fool xumaa darteed waan ka baxsannay. ugu dambeynna baakinka dhismaha ayaan geynay Sasha sababtoo ah anaga ma geli karin guriga oo waardiyaha fura la'aan wax ma fasaxo. baarayaasha waxay soo jeediyeen in weerarka Sasha ay suurtagal tahay inuu ahaa dambi wuxuushnimo ballaaran leh. booliiska waxay u jeesteen inay waraysi la yeeshaan rag kasta oo xiriir jacayl ama xasaawo la sameeyay Sasha. waxaa jira nin lagu magacaabo Taylor oo ay xiriir la lahayd muddo 2 sano ah, balse wuxuu sheegay inay kala tageen laakiin uu ku fikirayay maalin inay isku soo laabtaan. Taylor habeenkii dilka u dhacay wuxuu ka shaqaynayay baarka. wuxuu sheegay inuu aaday gurigiisa waqtina uu la qaadanayay waalidiintiisa. waxaa laga saaray baaritaanka kadib markii DNA-da gacan ku dhiglaha ay yeelan waayeen DNA-da Taylor. sidoo kale Taylor ayaa bixiyay xogo kale oo faa'iido leh. si kastaba ha ahaatee wuxuu xusuustay furihii sirta ahaa ee Sasha iPad-keeda. xogtan cusub waxay ka caawisay booliska si ay u helaan iPad-keeda oo yaalay guriga. iPad waxaa laga helay dhowr fariimo ay dirtay habeenkii dilkeeda. fariimahaas waxay dhex mareen Sasha iyo qof magaciisa lagu sheegay Ben, balse booliska ayaa la xiriiray Ben oo waxaa la yeeshay waraysi. wuxuu u sheegay booliska isaga iyo Sasha inay is yaqaanaan tan iyo iskuulkii oo ay hasaaween intii ay ku jireen jaamacadda, waxayna ahaayeen saaxiibo isku fiican. balse su'aalo badan ayay weydiiyeen, waxaana ka mid ahaa adiga soo ma ahan Ben? Hawa aniga. fariimo miyaad wadaagteen? Hawa sax, fariimo waan wadaagnay, waana ku sheekaysanay. waxaa kaloo la weydiiyey maxaad ka wada hadasheen? laakiin baaritaan dheer kadib wuxuu u sheegay booliska habeenkii dilka dhacay fariimaha ay wadaagayeen isaga iyo Sasha waxay ahaayeen kuwa iska caadi ah. sidoo kale waxaa la hubiyay DNA-diisa, balse baaritaanka isaga lagama saarin oo weli booliska shaki ay ka qabeen. sawirro laga soo qaaday shirkad qaabilsan ammaanka oo goobtaas ka shaqaynaysay agaarkeeda, taasoo ay ka qaaday dusha sare ee magaalada. waxay saraakiisha booliska shaandhayn ku sameeyeen daqiiqad kasta sida ay ku ogaan lahaayeen dilka Sasha. dilka Sasha wuxuu argagax geliyay qof kasta oo ku nool xaafadda ilaa magaalada, waxa ayna taas keentay in kiiska uu ku dhaco ciwaanada qaranka iyo warbaahinta. 1:46 daqiiqo oo subaxnimo nin aan la garanayn ayaa ka soo muuqday kaamirada, waxaana laga maqlayay muuqaalka inuu weydiinayo Sasha inay fiican tahay in kale. waxayna ku jawaabtay si farxad leh oo waxay tiri haa mahadsanid. isla daqiiqadahaas iyadoo ka soo laabatay qaybteeda oo jaranjarada ku turoonaysa ayaa mar kale laga arkay kaamirada, balse waxaa la ogaaday inay ka cararaysay nin kale oo ay aaminsaneyd inuu ka tuurayo dhismaha. balse waxaa haddana soo maray iyada iyo Steven oo isdaba socda si niyadna u sheekaysanayo, waxayna ka soo baxeen dhismaha. sidoo kale kaamirada ayaa duubtay marar badan Steven oo marna soo baxaya marna galaya qaybta saddexaad ee dhismaha iyo garaashka. kadib askartu waxay arkeen waxaan caadi ahayn 6:36 daqiiqo oo AM ah. Steven ayaa la arkayay isagoo galaya garaashka dabaqa labaad, watana ama sita 3 bac oo cadcad oo kuwa qashinka ah ka hor inta uusan bixin, isagoo wata boorsadiisa garabka iyo alaabtiisa. maamulaha dabaqa ayaa la weydiiyey in waajibaadka Steven ay ka mid tahay inuu qashinka qaado, laakiin maamulaha ayaa booliiska u sheegay inuusan shaqo ku lahayn qashinka, shaqadiisana ay dhamaato 6 daqiiqo oo ku qaadata qorista howl maalmeedka mararka qaar. laakiin 90 daqiiqo oo mugdi badan ayaa dul hoganaysa gurigan, taasoo ku qasabtay booliiska inay mar kale dib ugu yeeraan Steven si ay u wareystaan. su'aalihii la weydiinayay ayaa ka mid ahaa weligaa ma lagu xiray? Sasha aqoon muu leedahay? iyo kuwa kaloo badan oo baaritaanka quseeyo. balse dhammaan su'aalihii la weydiinayay wuu qiyaamayay sababtoo ah kombiyuutarka bologarafiga ayaa sheegayay 99.7% jawaabihiisa ma ahayn kuwa xaqiiqa ah. baaruhu wuxuu weydiiyey Steven maxay tahay sababta aad u joogtay dabaqa labaad adigoo bacaha qashinka wado, shaqadaaduna ay mar hore dhamaatay? isagoo ku jawaabay wanaag ayaan u sameynayay kuwa qashinka ka shaqeeya, ayuu ku soo koobay jawaabtiisa. halkaas waxaa ka muuqata kibirkaan caadiga ahayn iyo akhlaaq xumada Steven. ugu dambeyn booliiska ayaa ogaaday in Steven uu leeyahay calaamado xoqnaasho labada gacmood kor iyo hoosba, iyo hal calaamad oo muuqata qaniyo, balse wuxuu ku andacooday inuu qabo xanuunka neerfaha, taasoo baaritaankii hore uu ku sheegay. laakiin markii baaritaan lagu sameeyay guriga Steven waxaa laga helay
2 kabood oo ay isku cabir noqdeen daabacaadii kabihii laga helay guriga Sasha. 3 maalin kadib waxa iyana isku mid noqday suulkiisa midig iyo kii baaritaanka looga helay musqusha daboolkeeda hoose. sidoo kale waxaa la ogaaday qashinka uu waday inuu ka keenay qolka Sasha. waxaa kaloo baaritaanka lagu sameeyay telefoonkii Steven kaasoo laga ogaaday laga bilaabo 4:56 daqiiqo subaxnimo ilaa 5:01 daqiiqo. wuxuu baarayay sida loo tirtiro qufulada digitalka. 5:12 daqiiqo waxay dirtay fariinteedii ugu dambeysay waxayna u sheegtay saaxiibkeedii hore ee Ben inaysan fursad haynin ay ku kulmaan. booliiska waxay rumaysan yihiin in Steven uu tirtiray macluumaadka qufulkeeda. wax yar kadib 5:13 daqiiqo subaxnimo si aamusnaan ayuu u galay qolka Sasha iyada oo sariirta jiifta kadibna uu faraxumeeyay jirdilna uu geystay ka hor inta uusan ceejinin ilaa ay ka dhimato. wuxuu isku dayay inuu cadeymaha ku nadiifiyo warankiilo ka hor inta uusan ku ridin bacaha qashinka kaas uu geliyay gaarigiisa markii dambana iska tuuray. ninkii loo wakiishay ilaalinta dadka degan dhismahan ayaa runtii ahaa bahalkii ay ugu baahnaayeen inuu difaaco balse waxa uu ahaa mid aad looga naxo dambigan horarka ahna geystay. waalidiinta ayaa eedeeyay shirkadda amniga qaabilsan ee guriga. sidoo kale booliiska ayay u sheegeen iyagana inay wax ka qaban waayeen eedeymo tirabeel ah oo ninka ku saabsan oo horey u soo gaaray ayna iska indhatireen. sidoo kale waxaa dacwad lagu soo oogay shirkaddii amniga iyo shirkaddii samaysay qufulada digitalka. November 2015 waxaa la soo xiray Steven oo ahaa waardiyihii guriga. waxaana lagu soo oogay dambi dil darajada 1 ah, galmo iyo jabsi guri la degan yahay taasoo uu u geystay Sasha Samsudin. waxaana lagu xukumay xabsi daa'im. waad ku mahadsan tahay inaad la socotay qaybtii hore ee sheekada. daawade adigana nala wadaag fikirkaaga.